السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمانتين أصحاب ميل كستو أدونك أكجوكتين. أهلا وسهلا سودواد الجنال كينا جنالك فايزز وولد ميل كستو أدونك أكجوكتين وحا إذن ليهي فرحتك جوغي إن شاء الله سودواد أصحابتي غالقة ما أنت فيديو جان وحا أغهد لينا سيدا باركة أما الصنيها الله بحيو الله ديريو سيدا دبيعي sidoo kale baalasha indhaha sida loogu dheereeyo si oo dabiici ah oo uga maarmaysid remuushka indhaha la saarto ama eyelashka oo indhaha la saarto uga maarmaysiin waxaan isticmaalaynaa waxyaabo dabiici ah saliid dabiici ah sidoo kale waxaan isticmaalaynaa aloe vera gel yani waxaan isticmaalaynaa waxyaabo dabiici ah oo sunniyaha ka ilaalinayo qaleelka sidoo kale baalasha indhaha ka ilaalinayo qaleelka oo badinayo oo dheereynayo oo maasha Allah kaalska arke marka waxaa idin leeyahay asxaabteeda qaaliga ee soo dhawaada videogana like dhaha like tira hilmaamina insha Allah videoga like badan noo saara share noo dhaha gabdhaha asxaabtiina iyo ehelkiina aad iyo aad ugu mahadsantihiin haddii aan ugu cusub tahay marka ugu horeysa aan soo booqato waxaa ku leeyahay soo dhawow channelka subscribe ka taabo gambaleelkana furo si videoyaasha cusub oon soo gelin si toos ay kugu soo dhacaan oo si toos ah u aragtid insha Allah aad iyo aad ugu mahadsantihiin marka soo dhawaada alaabtan waa alaabtan u baahannahay oo isticmaalayno sunniyaha iyo baalasha indhaha alaab waxa waaye maasha Allah aad u fudud dhamaantood aan wada helayno sunniyaha iyo baalasha indhahaba noo bixinayaan oo noo nafaqeynayaan qaleelkana ka ilaalinayaan maasha Allah waxaa meeshan ku haysanaa aloe vera gelka asxaabta waxaa muhiim ah inuu ahaado dabiici inuu ahaado kan anaka haddaan isticmaalayno waxa waaye kan oo shirkadaha ay sameeyaan laakiin waxa waaye kan fiican waayo asliga ah waxaa kasi fiican maadaama indhaha loo isticmaalayo dacaarta caadiga ah oo dabiiciga ah yacni tan oo warshadaha ay sameeyeen waxa waaye chemical ay ku daraan xataa haddii chemical ay ku dirin oo yacni ay tahay mid oo asli ah oo fiican haddii dabiici ay tahay xataa waxaa jiro mawaad oo loogu talagalay in lagu xafido oo lagu daro oo yacni oo looga hortagayo inay halaawdo yacni mahma kaan waxa waaye asxaabta chemical way ku daraan way leedahay marka anaka chemical marna indhaheen inaan u dhaweyno waxaan u isticmaalaynaa dacaarta oo dabiiciga ah waxaa kaloo isticmaalaynaa saliidda qumbaha isticmaalayna waxaa waaye asxaabta saliidda orgaaniga ah ma aha saliidda oo timaha loo isticmaalo in loo isticmaalo indhaha marka waxaa muhiim ah saliidda oo indhaha loo isticmaalayo inay ahaato saliidda qumbaha oo orgaaniga ah iyo waxaa kaloo isticmaalaynaa saliidda saytuunka iyadana asxaabta waa loo isticmaalaa baalasha indhaha iyo sunniyahaba waa loo isticmaalaa saliid waxaa waaye vitamin E leh oo maasha Allah aad u fiican waxaa kaloo isticmaalaynaa zeed kharwac ama saliidda kharwaca English waxaa lagu dhahaa castor oil zeed kharwac waxa waaye asxaabta carabi waaye zeed kharwac English waxaa lagu dhahaa castor oil af Soomaali waxa lagu dhahaa ma aqaani af Soomaali qof ku yaqaano insha Allah hoos noogu soo qoro commentiga hoos noogu soo qoro si gabdhaha aan aqoonin ay uga faa'iidaan insha Allah waxaa kaloo meeshaan noo yaala oo isticmaalaynaa oo aad iyo aad sunniyaha iyo baalashaba ugu fiican waxa waaye vaseline iyo vitamin E ga marka vitamin E ga capsule-kan waa loo isticmaali karaa kan oo saliidna waa loo isticmaali karaa kan anaga aan haysan waxa waaye vitamin E oil waaye labadooda marka la isku qaso vaseline iyo vitamin E oil maasha Allah tabarakallah sunniyaha iyo baalasha indhahaba waa loo isticmaalaa waxa waaye si degdeg ah kuugu bixinayaan maasha Allah alaabtan hadda aan tusinaayo ma ahan alaab hal mar la isku wada qasaayo oo hal mar la wada isticmaalayo waxa waaye si isku raacayaan saliidaha qaar israacayaan si waxaa jirta oo la isku raaciyo oo la isku daro marka idin wada tusiyo kulligood kadib idin sheegi doonaa si isku raacayaan insha Allah waxaa kaloo meeshaan ku haysanaa maskara oo loo isticmaalayo baalasha indhaha maskaradan marka ma ahan asxaabta maskarada oo make upka oo yacni remuushka loo isticmaalo yacni maskarada oo loogu isticmaalo baalasha indhaha ma aha oo madowga ah oo marka make upka la marsanayo loo isticmaalo maskaradan waxa waaye maskara oo saliid leh waaye oo loogu talagalay baalasha indhaha in lagu dheereeyo saliidda ku jirtana waxa waaye saliid loos iyo vitamin E isku jira waaye marka maskara waxa waaye ani aan soo gatay oo yacni u isticmaalo baalasha indhaha idan waxaa jeclaysta inaan idinla wadaago yacni maskarooyin oo waxaa jiraan saan camal loo gato oo saliida ah sidoo kale asxaabta waxaa meeshaan ku haysanaa maskaradan marka waxa waaye maskarada make upka loo isticmaalo oo madow maskaradan marka waxa waaye maskara faadi ah oo maskarada ka dhamaatay waaye marka ma tuurayno waa la dhaqayaa si fiican u dhaqaysaa waxaa la rabaa si fiican inaad u dhaqdid kadibna waxaa loo isticmaali karaa saliidaha ku shubanaysaa meeshaa ka isticmaalaysaa marka yacni muhiimka waxa waaye buraashkaas inaan helno buraashka marka waxaan isticmaalaynaa xawaajibka ama sunniyaha iyo baalasha indhaha u isticmaalaynaa
marka soo dhawaada asxaabta haddana waxaa idin tusinaya oo idin sheegaya yani saliidaha sida isku raacayaan sida la isugu qasto oo loogu isticmaalo sunniyaha iyo baalasha indhaha videogana la socda min bilaaw ilaa dhammaad wax badan ka faa'iido doontiin insha Allah marka hore sababaha keeno sunniyaha indhaha iyo baalasha timaha ku yeelaan inay soo daataan number 1 waxa way asxaabta qaleelka way qaleelka hadii aad ku dhaaftid sunniyahaaga iyo baalasha way soo daadanayaan yani qaleelka marka ugu horeysa u sababayo tani shayna waxa way qalinka indhaha lagu rasimo oo madowga waxa way qalinkaas asna wuxuu ku sababaya timaha inay ku soo raacaan waxa way u fiirsan marka aad sameysanaysid oo qalinka aad ku sameysanaysid waxa arkaysaa timo yar inay ku soo raacayaan marka qalinkaas asna waxa way wuxuu sababaa timaha inay ka soo go'aan oo yani waxaan ka wadaa sunniyaha iyo baalashaba timaha sunniyaha iyo timaha baalashaba asxaabta waxa way sida timaheena caadiga waaye oo kale hadii ihtimaam aad siisid oo ka shaqeeyo sida timaheena caadiga uga shaqeeyno saliida u marino uga shaqeeyno yani sunniyaha iyo baalasha indhaha waxay u baahan yihiin in laga shaqeeyo oo la shanleeyo sidoo kale saliidaha la mariyo oo ihtimaam la siiyo u baahan yihiin hadii sidaas uga shaqeysid oo ihtimaam aad u siisid waxa way timaha oo sunniyaha iyo baalashaba waxay noqonayaan timo qurux badan oo madow oo xoog leh oo go'ayno ma sha Allah oo dheer ay noqonayaan qurux badan sidoo kale tandiif ay u baahan yihiin marka la isticmaalo indhakoosha iyo maskarada iyo make upka yani marka la isticmaalo waxay u baahan yihiin hadana in laga nadiifiyo saliidaha la mariyo habeenka marka la seexanayo oo laga shaqeeyo u baahan yihiin si aan u helno sunniyo oo badan oo caafimaad leh oo qurux badan sidoo kale asxaabta eyelasheska iyo eyeshadowga waxay sababayaan in ay timaha ay soo gooyaan la inna waxa way chemical leeyihiin waxay sababayaan in yani sida madaxa oo kale way yani sida timaha oo kale waxay sababayaan in dulduleelka meesha ay ka soo baxayaan timaha inay yani ay xiraan ay sababayaan yani muhiimna waxa ah in laga nadiifiyo hadii aad si fiican uga nadiifiysid waxay ku sababayaan yani in dulduleelka uu xirmo oo timihiina ay soo bixi waayaan eyelasheska oo indhaha la saarto waxa way waxay sababayaan in oo yani baalasha indhaha ay daciifaan ay soo go'aan ay sababayaan marka waxa fiican in lagu dadaalo waxyaabaha dabiiciga sida saliidaha oo kale waxa kale isticmaaleynaa aloe vera gel isticmaaleynaa waxa isticmaaleynaa vaseline iyo vitamin E isticmaaleynaa insha Allah marka waxa fiican in lagu dadaalo sidoo kale in loogu dadaalo nadaafada in loogu dadaalo oo habeenka intaan la seexan ka hor in la nadiifiyo oo si fiican loo nadiifiyo kadibna waxyaabaha dabiiciga saliidaha dabiiciga loo isticmaalo insha Allah intaan la seexan ka hor sida loo isticmaalayna asxaabta waxa waaye saliida kharwaca oo kale ama saliida oo castor oil waxa waaye ma sha Allah sunniyaha iyo baalasha indhaha waxa waaye timaha aad iyo aad u qurxisaa waxa waaye aad ugu fiican tahay timaha xoogi u yeelaysa sidoo kale waa madoobeynaysa waxa loo isticmaalayaa sunniyaha iyo baalasha indhaha labadaba waa loo isticmaalayaa caaga maskarada ka dhamaado aa lagu shubtaa si fiican u dhaqanaysaa marka maskara ay kaaga dhamaato kale si fiican u dhaqanay si fiican marka u dhaqatid saliida qarwaca ku shubanaysaa marka buraashkaas u isticmaalaysaa laazimna waxa in lagu shanleeyo waaye baararka ama sunniyaha inaad ku shanleysid waaye sidoo kale baalasha indhaha inaad ku shanleysid waaye si fiican marka ugu shanleysid waxa waaye markaas waa markii ay timaha ay markin oo dhiigan oo dhaqaaqayo ay timahana si fiican ay u soo baxayaan saliida oo castor oilka waxa ma sha Allah aad iyo aad ugu fiican tahay sunniyaha saliid qumbaha idan sidoo kale waxa waaye waa loo isticmaalaa waa lagu la masaajeeyaa waa marsanaysaa sunniyaha iyo baalasha waa marinay kula masaajeena iyadana ma sha Allah aad iyo aad ugu fiican tahay way soo bixisaa timaha oo sunniyaha iyo baalasha sidoo kale saliida saytuunka ma sha Allah iyadana waxa waaye vitamin E ay leedahay sidoo kale folic acid waxa waaye timaha oo sunniyaha si fiican ay u soo bixisaa iyo baalashaba ما شاء الله يعني كل جدا استعماليسين أو استعماليسين ومرنيسين وكل مساجينيسين مركب حافي يعني إن الله استعماله عاجز مسكرة كلمات أما حاجر عاج أو لو قلت لقلي أو سيدا مسكرة أو كلا يعني أو براش دي حدو قوة أو لو قلت لقلي سليد إن لو شبته أو صنيها لو قلش لا سيدا كلا بالش إنها لو قلش لا سيدا كلا وحكلا لو قدر سيدا سليد سيتونك iyo aloe vera gelka waa la isku qasaa kadibna waxa way baalasha indhaha la marsadaa iyo sunniyaha lagu la masaajeeyaa vaseline iyo vitamin E-ga waxa waaye ma sha Allah yani aad iyo aad isku naasibayna markii loo isticmaalo sunniyaha iyo baalasha indhahaba aloe vera gelka sida loo isticmaalayo asxaabta waxa waaye waxa la rabaa laakiin inuu ahaado kan dabiiciga aloe vera gelka aad iyo aad asagan ugu fiican yahay baararka indhaha ama sunniyaha iyo baalasha waa loo isticmaalaa si qafiif ah ugu isticmaalaysaa waa kula masaajeynaya marka kaligiisa u isticmaalaysaa haddii aad rabtid waxaa kaloo jira in saliida lagu daro sida saliida oo qumbaha oo kale markii lagu daro aloe vera gel ma sha Allah tabaarakallah aad iyo aad u qurxiyaa baararka iyo baalasha indhahaba si degdeg ay ku bixiyaan eegane ma sha Allah
alaabada marka la isticmaalayna asxaabta waxaa loo isticmaalaa markii la seexanayo le bas markaa seexanay sidaa isticmaalaysaa yacni markii indhaha isku qabanay sidaa isticmaalaysaa ma la rabo indhaha dhexdooda inay saliidda gasho marka waxaa la rabaa marka la seexanayo le in la isticmaalo marka hore inaad soo nadiifisid waaye marka hore aad soo dhaqdid markii aad soo nadiifisid kadib aad si khafiif u marinay aad kula masaajeynaysaa haddii si toos ah u wadiinne maasha allah tabaarakallah isbuuc gudihiisa isbedel weyn ay arki doontiin insha allah waxaan idin leeyahay soo tijaabiya aad iyo aad uga faa'iidi doontiin aad iyo aadan ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo la socodkiina aad iyo aadan kaga mahad celinayaa videoga like dhaha like-tana insha allah ha hilmaamina like badan noo saara sharena u dhaha gabdhaha asxaabtiina insha allah waxaan noo balan videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa khayr badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu